Asalaamu calaykum waraxmatullah. Barnaamijka maanta ayaa waxaan ku soo qaadan dadkii u dhacay xafiis ay lahaayeen hay'adda FBI-da Mareykanka oo ka soo xaday faylal aad u badan oo ka shiftay qaababkay u dhaqmi jireen oo ay dadka u basaasi jireen, balse marka hore ogeysiis. Waxaa bishan 15keeda bilaabmaya koorsooyin waxbarasho online ah oo maadooyinka luqadaha kombiyuutarka sida Python iyo Java iyo web development-ga sida HTML, CSS iyo JavaScript iyo maadooyinka xisaabta sida aljabrada iyo calculus iyo luqadda Ingiriiska. Koorsooyinkaas ayaa waxay soconayaan min 6 bilood ilaa 12 bilood oo si qoto dheer lagu bari doono maadooyinkaas. Wixii faahfaahin kala xiriir website-ka fahanous.com ama facebook.com/fahanous. Isqoristu waa socotaa waxayna duruustu bilaabmi doontaa 15 bishan aan ku jirno ee 9aad. Sanadihii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxaa caalamka ka hana qaaday laba quwadood oo xifaaltamayay oo kala ahaa Mareykanka iyo Midowga Sofiyeedka. Mareykanka ayaa wuxuu xoogga saaray si uu u wiiqi lahaa awoodii Sofiyeedka. Waxyaalihii uu Mareykanku ka hortagay ayaa waxaa ka mid ahaa dadka uu arkayay inay fikradda shuuciyadda haystaan amaba ay u janjeeraan Midowga Sofiyeedka. Dad badan oo caan ahaa ayaa waxaa shaqooyinkoodii looga cayriyay iyagoo lagu tuhmayay inay fikradda shuuciyadda haystaan. Dadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa aktarro iyo fanaaniin Hollywood ka shaqaynayay oo markii lagu soo oogay inay fikradda shuuciga haystaan wax shaqo ah aan la siin, iyadoo qaarkoodna ay u carareen wadamada Yurub. Xataa dabagalka iyo dhaleecaynta kama badbaadin ninkii madaxda u ahaa hay'addii nukliyeerka Mareykanka samaysay dabayaaqadii dagaalkii labaad. Ninkaas oo la dhihi jiray Oppenheimer ayaa sanadii 1954 waxaa laga joojiyay shaqadii uu u hayay dowladda Mareykanka oo waxaa lagu tuhmay inaan sirta dowladda lagu halayn karin. Ugaarsigu kuma koobnaan dadka loo arkayay inay shuuciyadda xiriir la leeyihiin ee cid kasta oo la islahaa danaha Mareykanka ayay mucaarad ku yihiin ayaa dhaqaaqooda lala socday. Waxaa ka mid ahaa dadkii la bartilmaameedsanayay kooxihii ka soo horjeeday dagaalkii Vietnam iyo xarakaadkii u doodi jiray xuquuqda dadka madowga ah. Hay'adda FBI-da Mareykanka ayaa dabagal ku samaysay dad ay uga shakisanayd inay ka soo horjeedaan danaha Mareykanka. Ninkii madaxda ka ahaa hay'addaas 1924 ilaa 1974 ee Edgar Hoover ayaa waxa uu FBI-da intuu mas'uulka ka ahaa faray inay dabagal ku sameeyaan muwaadiniin Mareykan oo fara badan oo uu ka mid ahaa Martin Luther King oo u doodi jiray xuquuqda dadka madowga ah iyaga oo dhageysan jiray telefoonadiisa, hoteelada iyo guryaha uu degana la socon jiray. Haddaba dabagalka faraha badan oo ay FBI-du ku sameynaysay dadkii ka soo horjeeday dagaalkii Vietnam ayaa waxay keentay in dad badan oo dhaqdhaqaaqyadaas ku jiray ay dareemaan in la daba socdo iyaga oo ka shakiyay in FBI-du ay ku daba jirto. Dhalinyaro ayaa marka waxa ay isku abaabuleen inay keenaan caddayn ah in FBI-du ay ku daba jirto. Markaas ayay waxay goosteen inay u dhacaan xafiis ay hay'addaasi lahayd. Xafiiskaas ayaa wuxuu ku yaalay Media, Pennsylvania oo 20 kiiloomitir u jirta Philadelphia. Muddo badan ayay dusha ka fiirinayeen sida ay xaruntaasi u shaqayso. Maalin ayaa waxa ay u soo direen gabar ka mid ahayd si ay xafiiska u dhex gasho oo ay u ogaadaan qolalka uu ka kooban yahay. Gabadhaas ayaa waxay xafiiska iskaga dhigtay mid shaqo doon ah oo waxay weydiinaysay doorka ay FBI-da ku leeyihiin haweenku iyo sida ay dumarka u shaqaalaysiiyaan. Gabadhaas ayaa markaas waxay ku dhex soconaysay xafiiskaas iyadoo iska dhigaysay inay luntay oo albaabkii hore aysan garanayn. Markii ay soo laabatay ayaa waxay ka xog warantay inta qolal ay xaruntaas ku soo aragtay iyo qaabka ay u dhisnayd. Kooxdan ayaa marka waxay goosteen maalintii ay u dhici lahaayeen. Waxay ku beegeen maalin ay Mareykanka ka dhacaysay ciyaar aad loo wada sugayay oo Mareykanka iyo caalamka si aad ah looga hadlayay. Waa 8 Maarso 1971 oo ahayd maalintii Maxamed Cali iyo Joe Frazier ay feertamayeen. Marka waxay goosteen maadaama dadka badanaa ku mashquulsan yihiin ciyaartaas ay ka faa'iideystaan oo u dhacaan xafiiskaas oo faylasha halkaas ku jirana kala soo baxaan. Arrintaas ayaa u suura gashay oo waxay jabsadeen xafiiskii, waxayna ka qaateen faylal aad u fara badan, waxayna goosteen inay saxaafadda u gudbiyaan. Waxaalihii faylashaas ka soo baxay ayaa waxa ka mid ahaa in FBI-du ay jabsatay telefoonada dad badan oo caan ahaa oo ka mid ahaa Martin Luther King iyo Maxamed Cali Kalay oo ay dadkaasi ku daba jireen oo ay basaasi jireen maadaama ay ka soo horjeedeen dagaalkii Vietnam loona arkayay inay shuuciyada taageersan yihiin. FBI-da ayaa waxay 200 sarkaal u xil saartay inay soo qabtaan ciddii xaday faylasha. Waxay ka shakiyeen gabadhii maalmo ka hor shaqada xafiiska u soo doonatay waxayna sameeyeen sawir gacmeed u ekaa gabadhaas si bal inay cidi garato qofka ay tahay oo loo soo qabto.
laakiin waa ay ku guuldarraysteen inay soo qabtaan gabadhaas iyo ciddii la shaqaynaysay, iyadoo 5 sano kadibna ay FBI-du xirtay baaritaankaas lagu hayay dadkii ka dambeeyay falkaas. markii ay soo shaacbaxday shaqada ay FBI-du samayn jireen ayaa waxaa la xadiday awoodahooda, laakiin kadib markii daarihii New York la qarxiyay 2001 ayaa awoodo dheeraad ah la siiyay oo ay muwaadiniinta Mareykanka ku dhageysan karto oo ay ku dabageli karto. dadkii u dhacay xafiisyadii ay lahayd FBI-du ayaa 10 sano u dhameeyay goostay inay isa soo shaacbixiyaan iyaga oo wareysiyo badan siiyay wargeyso wadanka Mareykanka ka jira. intaas ayaan ugu jooga barnaamijkii maanta intii aan mar damba kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi